muuqaal la soo geliyey baraha bulshada ayaa lagu arkay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo xidhan dhar caadi ah muraayad madow iyo koofiyad dheer kaasoo la taagan laba nin oo midkood geel la jooga yahay muuqaalka ayaa lagu dhex qoray qoraallo lagu sheegay inay Somaliland tahay dal xasiloon oo nabadgelyo ay ka jirto taasoo xitaa madaxweynuhu uu si caadi ah iskaga socon karo meelaha magaalooyinka aadka uga fogfog iyo dhulka miyiga ah muuqaalkan ayaa lagu arkay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo weydiinaya carruur yaryar cidda ariga raacday iyo isagoo si kaftan ah ugu sheegaya inaanu dadka kale madaxiisu ka weynayn kadibna si qoman u soo eegaya muuqaalka ugana warramaya nabadgelyada dalka ka jirta ariga ma xamaas xariyaha hay oo hada maxay yihiin ayru madaxweyne waxay caadi ma xasagay kaadara kala soo baxa kan yar salaamayo abihi awow waa ku oo baranaya ayaan ka wada meeshana meel ilaahay mahadi baqa ma jiraan miiba waa nadiif imika halkaa haddayna ilaa boora ka dhaara oonaan laan bigaamray magaalada caadigaan war maafa reer weliweyna casuubi ilaa iyo halkaasay lacabin ka tag way ku farxooliga si niyada ku casuubi ku soo halkaa ilaa boran ilaa laascarad waa la Somaliland ayaa kaga caanbaxday geeska Afrika nabadgelyada Somaliland ka jirta ayaa soo jiidatay indhaha bulshada caalamka taasoo shacabka reer Somaliland ay ammaan iyo sumcad kaga heleen adduunka Axmed Maxamuud Yuusuf telefishinka Saab Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida